السلام عليكم هلا سود وادو هلا سود وادو دمان أصحابته هلا سود وادو مدة اسمنا نرك ما كدي حق حقا لايف كه هلا سود وادو دمان هلا سود وادو هلا شير قرايو تعسيبان ودرينا dadkaygii Soomaaliyeed ee ku dhintay qaraxii shalay kuwa badan oo siyaabo kala duwan u dhintay dalka gudihiisa dhulka Soomaaliyeed markii la yiraahdo dalka gudihiisa markii la leeyahay ma aha in dalka loo tilmaamay qayb gaar ah dalka Soomaaliyeed gudihiisa inta ku dhimatay ayaanu tacsi u dareynaa guud ahaan kuwa si alla u dhintay kuwa ku dhintay meesha diridhaba korkeeda waa dalka gudihiisa waayo inagu dad Soomaaliyeed baynu nahay dalkeenu leenahay waa dalka Soomaaliyeed weeye inagu wa alaykum salaam soo dhawaada inagu hadaynu doonaan kala qaybsano inagu aanu Ilaahay ku runaay kala sheegano magacyada reer galbeedka bixiyeen aanu sheegano waa inaga weeye Soomaalida gudaheeda waxaan tacsiid dirayaa dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay iskooyska X control afgooye inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahu naxariistaan leenahay dad Soomaaliyeed bay ahaayeen ayaga iyo kuwa badan iyo malaayiin waxba galabsan baa maalin kasta la dilaa qaar qarax ku dhintay qaar siyaabo kale u dhintayba marka tacsiib aan u dirayaa dhamaan taa markaan ka soo gudbo waxa jiray hadallo ay isweydaarsanayeen dhalinyarada ay la wareegayaan Facebook-ga taasoo ahayd nin ka yiraahdo fanaan Maxamed Biike xaflad uu markaa dhigayay inuu hadal gafa ku yiri dadka reer Muqdisho oo dadka Soomaaliyeed reer Soomaaliya waxaan leenahay Soomaalidu sixun wax u sheeg sixir uu ka daran yahay Biike markii la yiraahdo tacsiid uu gudbinay waxay ahayd in showgiisa wuxuu noqday show tacsiib u yiri asagoo hadlaya YouTube-ka ku jira waad heleysaan showgii caaw wuxuu noqday u yiri caaw habeen tacsiib u yiri hadda eega muu oranin waxba igama geliniyo taan doona ii wada iyo muuse oran showgii wuxuu caaw habeen tacsiib u yiri wuxuu yiri hal aamuso hal daqiiqada faataha loo maro u yiri dadka walaalaheena ku dhintay qaraxa wa alaykum salaam dhamaan soo dhawaada hal aamuso daqiiqado faataxana hal loo maro u yiri dadka ku dhintay qaraxa ee walaalaheena Soomaaliyeed okay hees uu horeeyay shidayna waatan halkan ay ku jirtaa YouTube-ka iyadoo dhameystiran barnaamijku waad heli kartaan waxaad ka heli kartaan YouTube-ka hatta Biike fanaan Biike taa ku qorta qaybta u sareeya la soo geliyo waxa la soo geliyay saacado ka hor ayaa la soo geliyay hees uu horeeyay shidayna waxa ahayd hees uu ku qiimeynaya adduunka qiimihiisa iyo macnihiisa ayay ahayd hadalka ku jirayna wuxuu ahaa ee hadda la wareegayaan dhalinyarada Facebook-ga codkayga hadduu idinku dheer yahay raalli ahaada codkayga idinku dheer yahay macnaha hadalka uu horeeyay wuxuu ahaa uu tacsiida u dirayay wuxuu yiri reer Soomaaliya ama reer Muqdisho hadday Soomaaliland aqoonsadaan ayaguna dhibta way ka bixi lahaayeen oo qaraxa ka joogsan lahaa hadalka ayaa dad badan waxay u qaadeen dhinac khaldan Soomaalidu waxay tiraahdaa hubsiina hadal baa la siistaa macnaha ma aha qaraxa inay ayagu wadaan ma aha laakiin hadalka Biike ma fahmayaan dadka maanta ku jira meeshan dhalinyarada maanta jooga ma fahmayaan laakiin anu waan fahmayaa sababta aanu fahmay waxa weeye ummadda Soomaaliyeed way isku gurman lahayd macnaha hadii maanta la helayo Jabuuti wata noo soo gurmatay gobolka Hiiraan Ilaahay kuma keenay qarax way ka ilaalisa dagaalkay safka hore kaga jiraan macnaha waa dad Soomaaliyeed ma ogolaanaya inaad ku dhimato macna la'aan ma ogolaanayaan laakiin waxa jira ciidamo shisheeye oo wadankeena jooga Soomaaliya jooga oo mishaar ku qaata inay nabadda sugaan de nabadda hadii la helo bari way tagayaan macnaha taa waxa weeye nabaddu inay dhamaato lama rabo 20,000 oo Afrikaan ah
ayaa mishaar $1,500 ku qaata bil kasta inuu qarax dhaco oo kaliya hadduu qarax la waayana dib uu tagayaa ninkan ma joogayo waay wadanka oo ma dhalanin wuxuu ku joogaa inuu mashruucan socdo ayuu ku joogayaa ninkani inaan wax fahanaan oo aan aqligeena ka shaqaysiino laakiin ninka Soomaaliga ah ma ogolaanayo inuu qof Soomaaliyeed macna la'aan ku dhinto madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi baa la weydiiyay khilaafka u dhaxeeya Kenya iyo Ilaahay ku roonayay Soomaaliya xagga badda ah YouTube ka raadiya Muuse Biixi wuxuu yiri wax anaga noo dhaxeeya noo taal laakiin dhul Soomaaliyeed oo mataaka dhulka Soomaaliyeed kamid ah dhul Soomaali leedahay dawlad shisheeye sheegatay ku raaci mayna buudi waan ka soo horjeednaa inay sheegato dhulka Soomaaliyeed Kenya haye maxaad marka hadalka BK uu leeyahay walaalahay waan u hiilin lahayn hadayna aqoonsadaan ba waxa loo bedelay inuu qaraxa ku socdo war waxaas wax shaqeynaya ma aha dadka reer Soomaaliya koonfurta ka yimid ana koonfur ka yimid 90% maskaxdoodu qufulan tahay wax qof xumaan wada wuxuu u sheegay la wareegaan horumarka ma gartaan wanaaga ma gartaan runta markii laga hadlo dadka Soomaaliya ka yimid ma garatay أميرك سائل عو أنا هويدها عاين بلوك بانكو صار كذا جيب كذا أنا حتى ميل الأهدين أيام بلوك صار كذا لكن كم صار يو لكن هويدها عاين أوكي وحن الله اللي أذكر هالسوء مالي الله الله كونفور أنا كيمت قبل كذا كلش ضد كيو كونفور كنول ما هذا بس كحوض شقيس وضد وحيل الربل لقى دعيو قارب حن بهاد ميلها أنت كليب بيك سوتشر شرين أيها وحي كنا دعينا يان إني ضدك رئيس Soomaaliland لان جيبي ولو بيك يهين بيك حتى لفتيسة ما بخلط من با بيك لفتركيسة ما بخلط من لكن وهذا يرى وحيت هاي قرحا وكتشوكسن لها أيقونا نبض به هلي لها يعني معنى هذا وحوية إذا ما Soomaaliyeed يضعون محيادات كان بقى الهلي لها waayo ninka Soomaaliga hargeysa jooga ayadii waa reer Garowe eedadii waxay ku nooshahay jigjiga habreertii Jabuuti bay joogtaa asaga xaaskiisa xamar bay ka soo jeedaa macnaha inaad fahantaan Allah idin baro dad waxa tihiin aan wax ma fahmin Soomaalida inta badan si khaldan bay u fikiraan qofka Soomaaliga maanta guriga aad ku nooshahay tusaalahan ka soo qaad labadaada ayeeyo yeeyihiin bal adu ayeeyooyinka yeeyihiin adiga daawanaya miyaas weydiis أنا اللي لاحظ لي أيدي ويساق أنا اللي لاحظ لي أيدي ويساق وهبر أول هي أيدي أبو وأركون فركاوي ما قرت هدي اللي يراهدو فامي لهان يو حدد يو دوين اسكو قصرنا هاي مد مكلي مد بين ودنا هاي هل مد بينون هاي معناها مركي اللي لي ددكو way kala go'aya ama kala baxsan yihiin dadku waa markii kala yihiin kala diin kala midab ilaahay ku raay kala luuqad kala yihiin way inagu maxaynu kala nahay waxa ma kala liin hooyada waxay ka timid jigjiga aabaha hargeyso ku dhash habarta waxay degan tahay Garowe Boosaaso eedada waxay degan tahay Kismaayo ilaahay ku raanay Mandheera ama Diridhabe marruta ma la isku sheego runta ma la isku sheego Soomaaliya runta ma la isku sheego maxaa imika laydin shirinaya oo leeyahay war Soomaaliya isku kaalaya war wax noqda inayna waxba kala hayn baa la ogyahay Ismaaciil Umar Geelo madaxweynaha Jabuuti xaaskiisana waa reer Hargeysa Allah dhawray khadraxid haye caruurtiisa waxay guursadeen dad kale oo Soomaaliyeed ayay guursadeen caruurtiisi marka asagoo xor ah oo dawlad caalan haysta madax banaan ah ayuu wuxuu ka maarmi waayay Soomaalinimo hadda eeg asagoo dawlad madax banaan haysta oo calankiisa la aqoonsan yahay oo qaran midoobe cod ku leh ayuu wuxuu ka maarmi laayahay Soomaalinimo war waad hurdaan gabigiina waad hurdaan Soomaaliyeed tihiin waana liidataan waayo markii la hadlayo hadalka si gurracan baad u rogtaan qofka shakhsiyadiisa wixii dhaliila waa la dhaliili karaa laakiin in ummadaas iyo dhulka ku nool la jaayfeeyo ma wanaagsana runta markii laga hadlo cariya sheegi kara hal nin oo xilaya oo isku meel hooyadii aabihiis isku meel ku wada dhasheen oo ilmaadeer yihiin de ma jiro Abdi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare waa nin shalay yiri anigu waxaan ahay nin dira
waxaan ahay nin isaaqa waxaan ahay nin habara wala hooyadii waa naag daarooda oo ilaahay guri absama ah oo jid waaq inay tahan u malay caruurtiisii xaaskiisa hooyadood waa gabadh hawiyo abgaala ma sha Allah ummadan kale ee Soomaaliyeedna kulli family baa la wada yahay waxaad kala qaybinaysaan xagee yaalan marka war waxa inaga wada leh waxaanu aanu fahanno waxba fahmaysaan waxaan inaga wada leh aanu fahanno maxay wadamadan yar ee Yurub wadamo ku noqdeen isfahan bay ku noqdeen wadanka la Belgium iyo wadanka la Holland hadii la isku daro waxa ka weyn gobolka bari ee Puntland baa ka weyn gobolka bari baa ka weyn labada wadanba ayagoo wadan uu ka weyn inagoo intaas malaayiin ah oo ummad oo jirta ayaanu doonaynaa inaan ku weyn jiray baabiino war waxaas wax shaqeynaya ma aha waxaasi tusaale yar baan siinaya markaad wax karsanayso ama jika aad cunto karsanayso adiga shakhsiyan qofkaaga bini'aadanka ee nool markaad baasta karsanayso waxaad u baahan tahay suugo kariso hadda eeg adaa wada karinaya labadiiba adigu baa cunaya maxaa ku diiday ummadda Soomaaliyeed ee dadkaaga inaad gebigooda horumarkooda ka shaqeyso maxaa ku diiday maxaa kugu beeray inaad nacbaato ummad kale ha nicin Soomaali baa leeyahay hadday Soomaaliland qaran Soomaaliyeed madax bannaan noqotana waa hadday ixtiraaf shir waa qaran Soomaaliyeed oo ku noolaan kartaa cidna kaama xigto ayaydaa baa joogta habrartaa baa joogta abtigaa baa joogta adeerkaa baa jooga maxaa idinka khaldan maciyaalka yar ee daciifada ummadda kula dhex wareegaya ayaa doonaysaan inaad gebigiinaba qaataan saadad u tihiin aqliga inuu shaqeeyo waxaad maqli jirteen xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland halkaas oo ciidamo isku hor fadhiyaan deegaanka Tukaraq madaxweyne Farola joogay maalintu xilka ka deeyay Hargeysa yimid maalintu xilka ka deeyay Farola asagoo dhaqameed tusbixiisa wata inta qolaan uu Hargeysa yimid deewaan dhulkiisi maxaa loo dhahaa maxaad u timid waadiga shal halka fadhiyay waadiga gidaarka fadhiyay ma aha waxa loo noolaadaa in horumar iyo nabad la helo lagu noolaada laakiin looma noolaado in wax kale la baabiyo ma aha in wax la baabiyo xumaan laga shaqeeyo waxaasi ma wanaagsana haddaad moodaysaan dadka madaxda ana inay isnacab yihiin isma nacba laakiin systemkii siyaasiga ahaa ee lagu heshiin lahaa ayaa meeshii ka maqan marka runta laga hadlo Soomaalida hadalka way qarqarisaa labada maanta markii la Soomaaliya iyo Somaliland wada hadallada waxa leeyahay maxaa loo soo afjarlaaya ninka Soomaaliya xilka haya ma doonin inuu kursigiisa baneeyo hadday maanta Somaliland tiraado ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda wax walba waxaan ku yiri aan ogol hadday qaataa waan ku heshiinayna in caalamka wax laga bedelo in dawladda la qaybsado ma diidana laakiin waxa diidaya kuwan maanta Soomaaliya koonfur jooga diyaar ma aha illa midooba diyaar ma sababta kursiga waayo kursiga waayaano dawlad ba meesha imaanayso oo power sharing baa la qaybsanayaayo xukuumadii baa la wadaagayaa dawladda way baxaysaa marka labada nin ee maanta xilka haya labaduba kuraas inay waayaan baa macquula marka ninna ma doonayo inuu isku furo badan marka idinkuna waxa doonaysaan inaad wiligiin badan ku jirtaan oo run in ogaanin haddii maanta ilaahdo ilaahay ku runay Soomaaliya waxay Somaliland ka tabanayso dhanba diyaar baan u nahay xukun qaybsasho caasimada qaata ilaahay ku runay madaxweynaha qaata miya lagu heshiinayaa in madaxweynaha la qaato Soomaaliya dhan la maamulo lagu ma heshiinayo ninka xukunka hayana wuxuu aaminsan yahay inuu dadkiisa ka galay khiyaano qaran ayuu aaminsan yahay marka waxaan leeyahay hadallada fudud ee yar la boodaysan hal la daayo hadda Soomaali tihiin Soomaaliyeed tihiin hal la daayo mid kale inagu maanta waxaan nahay dadka ugu dhul burwaqa Ilaahayna siiyay dhul wanaagsan baynu haysanaa kulayl ma laha balaayo ma laha qabow ma laha waa dhul xoolo leh waa dhul daaq leh dhul beereed maanta hadii la soo galo magaalada jigjiga hadii maanta iska dhaxata cid kale oramadan ehelka nahay ku soo duusho Soomaali difaaciisa lama hayo waa inaanu fikirnaa maskaxiyan maxaan nahay inagu war adigu maxaad haysaa Soomaaliland ay maxaad haysaa intaas aad haysaa maanta ciidamo wadanka Soomaaliyeed hadday wax dhacaan diyaar muuta inaad difaacdo yes qalinka lagu jiidaya
وأربلاني أدوغنا دولة الصومالية اللي هشي لكن أقول إنها وحاده وح صوماليات هذا أقول دقالها إنه دقالة صوماليات عيدان كاغو إنها عيدان صوماليات إلا يكون دد كاغ إنها هين دد صوماليات وهدي بري لو باهدا wax naga weyn inay ka qayb qaataan ma aha inaad tira anaga waxba naga maqusayaan ma aha waa in si maskaxiyana loo fikiro laakiin hadaynu dhaano nin walba tuuladiisa deenim aan tuulo iyo deegaan lahayn ma jiro aniga idin la hadlay deegaankii wuxuu xal leeyahay Oromiya xal leena gobolka Afdheer Oromiya naga ilu saaran yahay wax halka uu joogo waa difaac Soomaalinimadan ku jooga waayo af Soomaali baan ku hadlayaa anigu ma loo taxad maqlaysan jifa reedaweedo gaasan ka tirsan islaynayaan qolyo kale in ka soo qolyaha laftooda isla qolyo reeraha haayeen laakiin waxa laga yaabaa in lahjada kala duwan tahay okay aniga haddaan lahjad kale ku hadlay waxaan wax la qaybsan karaa kuwan ku lahjadahay haddaan maanta af Oromo barto af Oromo ku hadlayo de malaayiin Oromaan bari soo kaxaysan karaa Oromo noqonaya laakiin dadka la rabo inay isdifaacaan waayo waa dadkan kale iga soo horjeeda ee isku isirka ah bal hadayna isku heelinaynin hadayna iska warhaynin de maxay tahay dadnimadiina ma jirto way wax jira ma dadnimadiina ma jirayso marka hadallada dhalinyarada Soomaaliyeed sida fudud loo qaadanay hal la joojiyo waxaan taasi u dirayaa intii ku dhimatay qaraxi shalay iyo inta kale Soomaaliyeed meel kasta ku dhimanaysa ummadani waxay u baahan tahay isku tanaasul bay u baahan tahay tanaasulka waxa weeye kuwa xukunka haya inay ka daacad noqdaan ummadda jiritaankeeda in la helo war hadii la kala go'ayo waa la kala go'i karaa Qatar iyo Bahrain iyo Imaaraadka waxa anaga wadamo looga dhigayo waa gobollo waa wilaayad waa gobollo yar yar ayaga ku heshiiyeen inay wadamo noqdaan carabtan haye maxay inagu u heshiin weynay inaan dawlad noqono oo hal qaran oo Soomaaliyeed wada yeelano intuba ma rabno inaynu kala go'nana ma rabno inaynu midownana ma rabno kan maanta calanka buluuga wata midnimada sheegaya midnimadiisa diyaar kama aha runta markii laga hadlo waayo haduu diyaar noqdo meesha waxa imaanaya hadaf ka weyn asaga meesha uu ka baxaya waxa imaanaya in qarannimo la qaybsado inay ummadda leeyahay hogaamin kara hogaanku ma aha iska imow qofku waagi hore hogaanku waxa lagu dooran jiray cilmi diineen min maadi inuu inta leeyahay inuu ummadiisa hogaaminayo u cadaalad fali kara lagu dooran jiray laakiin in iska yimid oo meesha shirkadaha keenay wadamo dawladda sheeyaa wata iska yimid ta ummadani ma maamuli karo waxa dawladnimada loo lahayn taasa kamida waxa dawladnimada loo laayahay taa ayaa kamida marka waxaan leeyahay hadii Soomaalida hatta la reereeyo gibigooda waa isku reer Soomaali baynu wada nahay haday galbeed tahay haday koonfur tahay koonfur idinku waxa u taqaanaa Soomaaliya ma koonfurta waa NFD iyo Kenya way waayo aan markaan Kismaayo joogay gado koonfur Soomaali bay iga xigtaa marka hadda kii Soomaali u dambeeyay baan ahay macnaha dad Soomaaliyeed baan xaqirayaa way war aqligeena aanu ka shaqeyno aanu dadkeena midayno aan hab aanu soo noqday meesha leedeen Kenya gobolada NFD ee Soomaalida Kenya ku nooshahay wadanka Kenya dawladda Kenya ciidamada booliska waxay rabaan bay sameeyaan maalowta laba gaari oo xamuulay gubeen ciidamada Kenya ka gubeen dhulkaas dad Soomaaliyeed oo inta u yeedhaan yiraahdeen war kaalaya dawladana la xisaabtama abnigiina ka tashada ciidamada samaysta maxaa loo waayay meesha yar kilka intaas ay ku roonto hada ogaada ciidamadana maanta la sheegay new booliska intaysa imaanin qofka Soomaaliga xataa dukaan ma furan jirin dad ba maanta markii la hadlo hadalka qofka eeg qofka waa la dhaliil karaa laakiin wixii jira wacyiga jira caalamiga lama dhaliilade Cabdi Ilaahay waxa uu sameeyay wax buu qarrabay waa shakhsi Ilaahay ku roonay maamulka cagjar wax buu sida yeelaya wax buu qarrabaya waa shakhsi laakiin hadafka guud inaynu horta fahanaa muhiima maxaynu ku nahay jiritaankeenna dhulkan maanta Ethiopia loo yaqaano 2004 Baarey marka tagaysay bacdu waa laga jeexay waxa wadatay ana tagay aniga in la hadlay degmada Baarey bacda wato laga jeexay haduu shaar cusub ku jiro waa laga reebaya waayo cashuur laamba wadanka soo gelis heer maanta waxaynu taagannahay gaariga Hargeysa ka dhaaqay ilaa dhagax buur ku xidho ilaa meel goday u tago
ilaa iyo jigjiga dir dhabe tagaan waa hadafka guud inaan nahay dad Soomaaliyeed xaduudan in kala celin karin in la fahansiyo dawladaha waa wax inagu aan leenahay ma aha wax iyaga noo sheegayaan okay qofka ku nool maanta dhulka laba sharci midna ma haysto xagga Soomaaliland intuu soo xiga ma haysto ilaahay ku raaki Ethiopia ma haysto waa nin geelay nin xoolo dhaqato ah geelis intuu ka soo direeriyo meesha aad dhagax buur ama halka ayuu wuxuu tagayaa galkacyo dusheeda haduu rabo la ceel buur buu sii gaaray waa xoolo dhaqato hadii lu yiraahdo geelaadu 100 ma dhaafi karo 100 iyo dhaafina 50 ma dhaafi karo dukaan ma furan kartid gaari ma iibsan kartid ilaahay ku roonayaan afkaaga hooyo wax kuma barin kartid waxaas dadkan soo mareen waxaas oo dhan baa la soo wada maray waana u soo joognay iyo in looga sheekeeyayba heer waxay la soo maray dharka caadigeed iibsato inaad bacda ka furto ka dhigto sidii dhar la isticmaalay xataa inta jijibiso aad bac ku gurto markii Ethiopia la galayo waa la soo maray laakiin maanta waxa dhaanta in la leeyahay dad Soomaaliyeed oo jira in maamul jiro in ciidamo Soomaaliyeed oo u hiilinaya hadii dad Soomaaliyeed oo meel degan shisheeye soo weeraro waa alxamdulillah waa Soomaalinimo ayaanta live ka maqnaa mana rabin in live iyo waxa soo galgalo laakiin markii hadallada ma artay gurracana la wareego ayaan u sheegaa dadka gurrac daaya war Soomaaliya gurrac daaya waxaan dhan idinka wada leh ina Djibouti u gurmataan Soomaaliland u gurmataan Puntland u gurmataan ilaa Kismaayo meesha ilaa Kenya NFD dhulka Soomaaliyeed oo dhan Soomaali meesha ku nooshahay inaad u gurmataan Ilaahay idin baro idinkaan iskale mid kale hadalka qofka waa la hubsadaa lama jarjaro lama soo qaado kiyar ay hadii meelaha ka aytamayay amiirka Saylac wato war amiirka Saylac waa magaalo taariikhiya waa caasimadii ummadda Soomaaliyeed ugu horeysay caasimad u noqoto dhulka geeska Afrika amiirka Saylac baa la soo qaadanayaa reer baa la sheeganayaa dad Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamay inay dad xun asaga ayaa iska dhigay nin wanaagsan dadkiisu uu dad ku beeraya waxaas oo kale la iska daayo way jiraan dhalinyaro fara badan qaar asoo ku fikira jira hadaa inta live soo galeen ka sheekeynay dhibaatada Muqdisho ka dhacday dad baa ku faraxsan waan ogna laakiin waxa leena dadka shacabka ay wanaagsan ha dhageysanina dadka xumaanta wada ha dhageysanina wacyiga siyaasiga nolosha caadiga ah waa in la kala saaro siyaasadda iyo nolosha caadiga waa kala laba adigu hadaa doonaysan noqoto qof caadi ah waa ina ummadda Soomaaliyeed ummadaadi tahay magaalo Soomaaliyeed ku ganacsan karto horumarkeeda jeceshahay dhibaatada aad ka naxayso laakiin hadaa tiraahdo siyaasadii baan raacaya madaxweyne Muuse Biixi iyo madaxweyne Farmaajo telefoonka ku wada hadlaan haday caawa dhahan Soomaaliyeed dadka midoobeynay war midooba xuquuqina qaybsada anagu waadin dhaafnay way heli karaan laakiin ma sameynayaan waa in walba dantiisi waqtigiisu eeganaya marka waqtigan la eeganayo adna yuu ku qaadin waqtigan la eeganayo yuu ku qaadin aabaha buu qaatay 30 sano intuu siyaad bar xukunka soo hayay iyo inta ka dambeysay burburka ahayd waa 60 sanadood aabaha buu toos u qaatay maxaa tiraahday maxaa tiraahday 30 sano siyaad barre horumar baa la gaaray dhibaato laakiin ka dambeysay bal 30 siyaad barre ee dhibaatadu keenay iyo dhibaatada ka 30 ka dambeeyay adigu iska daa aabaha bay galaafatay aabaha maanta waa 60 jir adiga ay daawanayo aabaha ku dhalay maanta waa 60 jir muxuu ka dheefay marka muxuu ka dheefay jiritaankiisa wadankiisa ummadahaantiisa muxuu ka dheefay waxba kama dheefin adna qaxooti baad ku tahay wadamo sheeye kulligeen qaxooti baynu nahay qaxooti baynu doonaynaa marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed in laga waantoobo dadka hadal xunka ah ee hadallada xun la wareegaya in la iska ilaaliyo wanaagsan anu ka shakhsiyan siyaasadda waan dhaliili karaa mar dhaliilay jirto waan dhaliili karaa laakiin waligeed nacayb oo ma qaaday ummadda Soomaaliyeed kuwa islaynayana walaalahan waxa leenahay islaynina idinka wada dhash haday gobol isku leeyahay ayaga isxiga hadii maanta Anfar iyo Ciise way islaayeen hada waa Anfar iyo Ciise Soomaalida gudaheeda Anfar iyo Ciise ha islaynaya waa wili abtiba isku yihiin
waxaan xaq u leenahay inaan tagno oo ogaano waxa meesha ka jira inaan heshiisiino kii dulman aan qabanno ayaan xaq u leenahay haddii kii kale shisheeyaha waday gartintu qaadan waayo soo heeliyo cadaawad keentana marka walaalka waad u helin kartaa laba jeer marna uu heeliyo maslaxa marna uu heeliyo u dhimo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay dhibaatada ka saaro reer Muqdisho dadka reer Muqdisho waxaan leeyahay war dad dawladdiina ku kalsoonaada dawladdu waa idinka maxamed cabdullaahi farmaajo xasan cali khayr bari way tagayaan shalayba way yimaadeen madaxaygu wiil ma xeerin inta tibahay igu yaaleen shan madaxweynaas bedeshay iska daa wax kale ma xeeranaa ma xeeranaa jaagu ma aan jaranaa yaa lee runta la isku sheegaa wanaagsan moogta inta tibahay igu yaaleen shan madaxweyne yimid ما يس صدق شيخ شريف إذا يكون إنك اللي هذا حسن شيخ يا فرماتشو ما أنت تشوقه مركا وحن ويتجيان وين ضمانة جان لكن إنه أنا نقولنا ضد أبسل دولة نمدة هنقولن قف دولة ده النقطة يا سياسي حابة أنا النقطة هكو فكرن حابة هنقولنا ذو وين نقطة قف شراء ضد كسوة تهريبية كسوة على الوطن inta badan anigu aan kamid ahay waxay ku fikirayeen hadaf ka sareeya hadafka maanta ay ku jiraan wacyiga waan sameyn karnaa inaan wadanka intaan nimaadno noqon xaabo oon qori qaadno oon ku biiro maamul qabiil qac waan sameyn karnaa laakiin waxaan doonaynaa maxay tahay inaan ahaato qof adigu hankiisa uu sareeyo ha noqonin xaabo ha noqonin waad awoodnaa inaad xaabo maalin walba dad baa islaayo dhinta kuwa ku dhinta maxay yihiin waa xaabo weeye labada dhinac maxay ku dhimanayaan waa xaabo waayo kan soo duulay kan ilaahay kan soo duulay waa xaabada koobaad kan difaaciya laftirkiisa asaga ay ku dhimanay meeshiisa xaq buu leeyahay inuu isdifaaco laakiin waxa khalad ah inay marka hore dhul aan laga dhimanayo la isku dilo dhulka ma dhimanayde dhulkan ilaa nabi aadan sidan u ahaa ما دول قاطع أرتين بل ما تريه بالبصومالي ودم وزين قاطعن أنت حقيقي يعني بيكون ولا كلام ما إنه نورش فهن يوروبي عنك ودم هذا هروي مرة وحيكون في جران قف كاس الشخصية ديسة إنه نورش يسدسه أقونتيسة فرسمة ديسة إلى يكون هنا يحصل سعر كيس إنه يوكشق أيام مهم ده دول كان الصومالياتنا waxa dhibaatada u keenaya waxa weeye ma jirto aqoon farsamo waayo dadku markay farsamo yaqaan yihiin kuma qofka markuu farsamo yaqaan yahay kuma fikira inuu qori qaato laakiin markuu aqoon haynin ama miyaha ka yimaado ama magaalaha jooge balwadnu isticmaalayo wuxuu ku fikiraa inuu qori qaato ciidan noqo reebel raac qabyaalad ku dagaalan waxaas laga bixi maayo ilaa ummadani loo furo ma la weeto magaalada liiraado أنا عدايا كنت على قبل خصال سكول بالغ فري وحكى بحث داليرة هذا فر بدن وحرفت له كوريه هدسان وحبي قبطان كل يوم فرسمة يقانن نكبركم فرسمة يقانو ما أقولان إنه سي خلدن مال ودخل دن مرة ينو سي خلدن لودلو ما أقولان يدي لكن تذكر لما أنا اللي تذكر إسلين يتكلم إياه وضد نلش بأن وحبي كفاهن سنوي مركز ساس اللي فهمه تذكر سومالي اللي عقت له dawladaha jira waa inay dadka loo furo dugsiyo waxbarasho farsamo aqoon maanta Yurub China haysta ninka China iska kabaha ka toli jiray wadankiisa markuu cariiri ku noqdo China iska ku farabatay uu soo carro halkan yimid shantada hay tolaan wax ka say tolaan farsamo yaqaanaan wuu shaqaysanaya qofkani wuu shaqaysanaya shayga iibsoo China leh maxaad ku diiday wax soo saarto bal shayga iibsanaysa ka wax xunka dacaska ah waxa laga keenaa Taiwan xataa wadan la qoosay ma dacaska kaba heen isticmaal Taiwan ba laga keenaa wadan la qoosay ma China ku hoostaala China korka ilaaliya haye hindida gaajada hayda waxay soo saartay aad iibsanaysaa lacagta laga raray baa dhulkooda ku dhisanaya adiguna wiliga waxaad ahaanaysaa saxraan geem dhulkaaga ahaanaya marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed aanu ahaana dad si wanaagsan wax u fikira hadaf wanaagsan leh maskax wanaagsan leh qabyaaladu wala tacaarifo in la isku garto fiicanta adigu reerka tahay inaan ogaado xumaan maaha laakiin ma jiro reer ka sharaf badan ma jiro de
aduu shakhsi baa tahay magac baa lagu yaqaanaa anna magac baa la yaqaanaa maxay ta sharafta aad dheertaa qofkani qofka Soomaaliyeed aad leedahay hadda reer Landheere oo dhintay waliya maqash reer leey waa Landheere wuu dhintay ninka Landheere muxuu dhimanay waa Landheere nin leey waa Landheere ma dhimanayo waliya maqash qof kasto bila aadana waa qof Ilaahay abuurtay way marka aynu saa u fikirno ummadda Soomaaliyeedna aan wanaageedu ka shaqeyno aad baadin salaamaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته